allah subxaanahu wa tacaala waxa uu abuuray janno iyo naar, mid walbana sifaheeda iyo dadka galaya sifahooda wuu inoo sheegay. Jannada waa meel aada u qabow, aadna u raaxo badan. Waa meel laga helayo wax kasta oo ay naftu rabooto. Waa meel webiyada ay dhex dareeraan, webi caano ah, webi malab ah, webi khamri ah, webi biyo ah. Jannada waxaa dhex ahaaday wax ayna il arag weligeed, dhegina maqal abidkeed, qalbi ibni aadamna aan kusoo dhicin bataatanba. Way qurux badan tahay, way udgoon badan tahay, way raaxo badan tahay. Waa meel ciddii gashaa aan dib looga soo saarayn. Waa meel ciddii gashaa ayna bukoonayn. Waa meel aadan weligaa ka dhimanayn. Haddaba jannadaas quruxda badan, ee udgoonka badan, ee raaxada badan, ee aan laga duqoobayn, lagana dhimanayn, laga bukoonayn, laguna dhex caajisaynin, waxaa jira qof iska diiday inuu galo. Haddaba waa kuma qofkaas? bal ila dhegeyso xadiidkan shariifka uu warinayo saxaabiga jaliilka Abu Hurayra radiyallahu canhu. Rasuulka Ilaahay wuxuu yidhi: kullu ummati yadkhuluuna aljanna, ummadayda u idil jannada ayay galaysaa. ummadda Nabi Muxamed oo idil inay jannada galaysa ayuu bishaaradeeda bixiyay Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam. Wuxuu raaciyay ilaa man abaa, qofka iska diida mooye. Qofka diidaya yaa waaye? waa la weydiiyey Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam, waman yaba yaa rasuul allah. Qofkaas nasiibka daran ee jannada inuu gala diidaya. Markaasuu Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam ku jawaabay: man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa. Qofka aniga yaa adeeca ayaa jannada galaya, qofka aniga igu caasiyana waa qofka iska diiday inuu jannada galo.